halkani waa hoyga Soomaalida Holland Radio Dalmar stuudiyihiisa magaalada Danhaag oo idin ka dhageysataan muujada FM-ka ee 106.8 sidoo kale aad naga dhageysan kartaan barta internetka aynu ku leenahay oo ciwaankeenu yahay dalmar.org kusoo dhawaada dhageysiyaal barnaamij gaar ah oo ku saabsan waraysi raadiyaha Dalmar uu la yeeshay Olqa Cabduqaadir oo ah haweeney Ruusha balse si fiican uga hadasha afka Soomaaliga. Olqa oo inagu soo booqatay stuudiyaha raadiyaha Dalmar ayaa waxa aynu ka waraysanay qaabka ay u baratay afka Soomaaliga iyo xiriirka ay la lahayd Soomaalida iyo waqtiga ay bilowday inay ku hadasho luqadda afka Soomaaliga. Maxamed Abuukar Maxamed Deeq oo kamid ah wariyaasha raadiyaha Dalmar ayaa la sheekaystay Olqa oo waraysi dheer la yeeshay waxaana waraysiga uu dhacay sida tan. waxaad ka sheekaysaa xiriirkaaga ugu horeeyay Soomaaliya markii la dhaho markii ugu horeysay aad maqashay wadanka Soomaaliya meeshuu ku yaalo ilaa markii dambe aad gaartay heer ah in aad yani caruur Soomaaliyeed aad yeelato Soomaali aan noqoto marka sidee xiriirkaas ku bilowday? xiriirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan la bilaabay mar hore waa bilaabay sanadka 70-kii waqtigaas aniga iyo ninkayga waa isbaranay waxbarashaan joognay labadeeni magaalada la yiraahdo Leningrad ee midowga Soviyeetiga ahaa iyo laba sano waan saaxiibo baanahaynay kabacdi waan jecelnahay waxaan isgursanay asaga waxbarasho dhameeyay dalka aaday anigana sanad kadib ayaan ku biiray Soomaaliya markaan imaaday waqtigaas. waa gartay marka ku hadalka af Soomaaliga asaga ma ku baray mas waxa baratay markii aad Soomaaliya tagtay oo dadkii Soomaalida aad dhax gashay ayaad baratay af Soomaaliga? afka Soomaaliga waxaan bilaabay mar hore markaan isbaranay waxaan jeclaan jiray inaan wax fahmo sababtoo asiga keligiis ma joogin wuxuu joogay Soomaalidu kale marka groupkoodii waxaan jeclay maxay ka hadlaan afka waa wixii anigana aan ogeyn laakiin erayo anigana karkood waan lawaaki jiray laakiin kuma hadli jirin afkayga waxaan bilaabay markaan Soomaaliya soo galay laakiin dib buu ahaa laba sano intaan baranayay waa dib iyo wax kasta oo soo maray bugaag ma jirin marka dadkaan dhageystay wixii aan weydiiyay 3 sano kadib waan bilaabay xoogaa yar inaan hadalka aan ka jawaabi karin. waa gartay marka barashada Soomaaliga af Soomaaliga waxaa sabab u ah yani ninkaaga isbarateen ayaa sabab u ah mahane yani ma jirin jacayl kale oo aad u qabtay inaad barato af Soomaaliga? anigana mar hore waxaan bartay af kale markaan isgursanay Soomaali markaan imaanay waxaan u maleeyay waxa af kale afkee aan isticmaali karaa haddaad doorayst wadan kale meel aad ku degnaa rabtaa marka inaad afka inaad barataa mida kale waxaa jirtay ololaha af Soomaaliga dadka naftarkoodii waa ay jeclaadeen afkoodii inay ku hadlaan wax kooraan marka maadaama aniga afafka aan baranay waxaan dhahay waa arinta igu fududnaanaysa marka aniga si fudud aan baranay laakiin runtii ahaan saas ma dhicin waxaan rabay inaan ka shaqeeyo marka waxaa layga rabaa inaan af Soomaaliga baro marka taas waxaa jiray problem iyo waajibkayga si aan afka Soomaaliga baro. waa gartay marka waxaa sheegtay ilaa muddo inay kugu qaadatay barashada af Soomaaliga marka qaababka aad adeegsatay markaa baranaysa af Soomaaliga runtii oo yani ku fududeeyay inaad barato marka laga soo tago ku hadalka maxaa kaloo sameey jirtay maxaa isku mashquuli jirtay badanaa oo si aad u barato af Soomaaliga?
horta waxaan ku sheegi karaa niyadaydii weyn taas waa ugu muhiim ah aniga waan jeclay sababtu waxa way haddaadan rabin oo khasab ah ku jirtaa adiga wax ma baranaysin horta waa niyadaada inay weyn ahayd mida kaleeto waxa way waxaan aniga keliya maaha inaan gurigiisa fadhiyo waxaan rabay inaan ka shaqeeyo haddii aad shaqo raadisid marka waxa way dadka waa inaan la xiriirtid problem kale ay imaaneen dadkii ay ka sugayaan mise adigaa doonaysa inaad wax ka sheegaysid iyo af soomaali waxaan arkay markaad af soomaali ku hadlays dadka aad ku rabaan mise waxay ku maxmaxayaan waxay ku sheegayaan wax qof ajnabi af soomaali ku hadlay taas waan jeclan jiray taas marka sax marka waxaa dadkii oo aad ka aragtay marka kula hadasho af soomaali in ay ku dhiirigelinayaan oo ay ku imaanayaan taasaa kusii dhiirigelisay soomaha yani inaad barto af soomaali dadka aad baa iga yaabi jireen waa dad ajnabi oo af soomaali ku hadlayn waagii saas ma badnayn af talyaani kuma hadli jireen ajnabi kale saas ma badnayn iyagana waxay jeclaan jireen af ingiriis inay ku hadlaan mise af kale markay dadkii suuqa markay arkeen qof ajnabi oo af soomaali ku hadlaya way iga yaaban way iga daba socdeen kula yaaban yihiin haddana weli marka soomaalidan arka meel iyaga af soomaali ku hadlaan anigana waxaan istaagay waan degeysnay marka ay fiiri nagta gaalada maxaa nooga dhegaysanaysaa waxaa iska dhegaysanoo fahmaysaa marka waxaan daa adiga isku sheex aniga af soomaali waan fahmay marka hore soomaalida macnaha qofka markay arkaan waxay jecel yihiin inay wax isku sheegaan oo qofkaas ay wax ka sheegaan ay dhahaan qofkan muxuu meesha u taagan yahay markii ay dareemaan in oo aad fahantay way isku naxayaan inta badan marka Soomaaliya markii la dhaho oo markii ugu horreysay Soomaaliya aad timaaday oo af Soomaaliga aad baratay marka maadaama yani wadankii aad ku nooshahay oo Soomaali aad tahay marka laga soo tago luqadda maxaa kale oo yani aad istiribaro sida mesela dhaqanka Soomaaliga oo kale dhinac kasta markii laga fiiriyo maxaa kale oo niyadaada ku jira oo aad islahayd baro oo aad baratay afka marka baranaysa waa xaway dhaqankana waa baraysa iyo waxaad ku nooshaa dadka dhexdooda marka wax kasta xiriir yar xataa aruurtii waad leedahay aruurtii waa isla ayaaraan iyaga waa isfahmaan mise waa isdiraan marka adiga waa inaad taqaana mise inaad wax weydiinaysa dadka maxaa dhacay marka erey kasta oo iyagaa sheegaan waad dhegaysanaysaa waad baraysaa waxaad isticmaalaysa kabacdi marka taas waay